dowladda Shiinaha ayaa maanta hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ku wareejiyay 1,069 oo gargaar raashin ah taasoo ay ka dowlad ahaan uga qayb qaadanayaan gurmadka loo sameeyo walaalaha Soomaaliyeed ee colaadaha iyo abaaraha haatan daala dhacayo munaasabad kooban oo maanta ka dhacday baqaarka hay'adda maaraynta ayaa qunsulka safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya wuxuu deeqdan gargaarka ku wareejiyay gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamuud Macali Cabdulle shixnadan gargaar ee maanta Shiinaha ku wareejiyay gudoomiye Maxamuud Macali Cabdulle ayaa iskugu jirta qaybaha kala duwan ee raashinka gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamuud Macali Cabdulle ayaa uga mahad celiyay gargaarkan dowladda Shiinaha isagoo xusay inaysan ahayn markii ugu horeysay dowladda Shiinaha gargaar ugu deeqdo shacabka Soomaaliyeed waa ku faraxsanahay runtii maanta inaan soo booqato waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinaynaa dowladda Shiinaha iyo shacabkeedaba runtii garab istaaga aad mar oona la garab taagantii markasta la garab taagantihiin dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed farxad weyn ay noo tahay runtii in maanta noogu timaado baqaarkii naguna wareejiso raashin runtii aad u fara badan oo runtii aan ahayn markii ugu horeysay aan ognahay inaysan naqanin markii ugu dambeysay raashinkaas oo runtii ka kooban qamadi iyo bariis oo ay tahay runtii raashinka loogu cunid badan yahay oo dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin waxaan ognahay inaad shaqooyinka horumarinada aad ka sameysaan qunsulka safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa sheegay in Shiinaha ay ka go'an tahay caawinta meel walba ay joogaan shacabka Soomaaliyeed an embodiment of the Chinese people's brotherly friendship and the partnership towards the Somali people. As you have said that we Chinese people, we are always standing with our Somali sisters and brothers, especially when you are in difficulties. This shipment is a shipment which has navigated. Shiinaha waxa ka go'an caawinta walaalahooda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxaa muhiim inoo ah inaan garab istaagno walaalahayn maadaama ay wajahayaan xaalad aad u adag oo dhanka nolosha ah. Shiinaha iyo Soomaaliya waxa ka dhaxeeyay xiriir qoto dheer. waxaana ballan qaadeynaa inaan mar walba garab taaganahay walaalahayna Soomaaliyeed dhamaadkii sanadkii hore ayay ahayd markii dowladda Shiinaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ku wareejisay shixnad mucaawina oo loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed oo xilligaasi abaara aad u daran la dhacayay Yunusulaan Cali warbaahinta qaranka Muqdisho.